kulankan maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay ka qayb galeen agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dawladda federaalka ah iyo xisaabiyaasha wasaaradaha iyo sidoo kale mas'uuliyiin ay ka mid yihiin antidhawraha guud ee qaranka ku-xigeenka xisaabiyaha guud ee qaranka iyo sidoo kale xogayaha guud ee baarlamaanka federaalka ujeedkiisuna ahaa daahfurka miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2015 oo markii ugu horeysay si official ah loo furay ayaa waxa furay wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya mudane Xuseen Cabdi Xalane kulanka ayaa waxa wasaaradda maaliyadda ay ku soo bandhigtay nidaam cusub oo casri ah kaasi oo ay doonayso in lagu maamulo miisaaniyadda qaranka isla markaana wasaaradaha dawladda qaybooda kala duwan looga doonayo inay ka wada qayb qaataan hirgelinta nidaamkaasi agaasimaha miisaaniyadda qaranka ee wasaaradda maaliyadda Axmed Cabdi Aadan ayaa sharaxay ujeedka ay wasaaradda ka leedahay nidaamkan cusub ay soo kordhisay iyo waxa loo gol leeyahay waxaan u baahanahay garabkiina afmidku waa ogahay waa barnaamij idinku cusub laakiin uu leeyahay caqabadihiisa waa leeyahay faa'iidadiisana waa leeyahay laakiin haddaan anagu u garab adeegno oo maartay dhexda u xirano waan fulinaynaa qaabka maan la kaga baahan yahay iyo maartay waxyaalaha u baahan oo dhan waa wada gaaraynaa boontiska loo baahan yahay oo kale waxa kamid ah horta inaad marka hore aware ku aataan ama ogaataan maxaa Minister of Finance ee haysa maxaa ka socda budget korkee maraya xaaladiisa maxay tahay workshop-kan aan qabanayno iyo isku imaashahan muhiimadiisu waxa weeyaan in aad la socotaan ogaataan information-ka aad uga baahan tihiin Minister of Finance si loo gaaro fulinta miisaaniyadda waxyaabaha sida aadka ah looga dooday maanta kulanka lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa kamid ah nidaaminta shaqaalaha dawladda iyo sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda qaar kamid ah agaasimayaasha guud ee wasaaradaha ayaa iyagu ka hadlay aragtida ay ka qabaan nidaamka cusub ee maaliyadeed ee ay soo bandhigtay wasaaradda maaliyadda wadanka wuxuu leeyahay sharciga shaqaalaha dawladda law number 11 sharciga shaqaalaha dawladda waxa ku qoran waxyaabo fara badan oo maanta halka laga hadlayo ay ku qoran hase yeeshee aan la raacin wasaaradda maaliyadda ay raacin for example waxa kamid ah marka la sameeyo jaangoynta shaqaalaha wasaaradaha u baahan yahay waa inay xaadir ahaadaan wasaaradda maaliyadda guddi shaqaalaha bankiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda hase yeeshee ma dhacdo maaliyadda waxaan ka rabaa kulay meeshan u marayno waa hanti baadi naga maqan waaye ninka hotelka furtay ammaanka waa la siiyay hotel shala lama furi karin magaalada way aragnimaan qaadan ina hotel la furay kuu shidaado caawa dhan hotelkaaga lagu caweeyo waa qaranka kuu sameeyay labada asgari albaabkaaga joogto security-gaaga masuulka okay marka xagee ka joognaa taa inaan helno lacag badan aan nooga baaqatay dadkaas sida looga soo qaadi lahaa dhinaca kalena ku-xigeenka xisaabiyaha guud ee qaranka Cabdirasaaq Maxamed Abuukar oo kamid ahaa mas'uuliyiinta maanta ka qayb gashay kulanka ayaa waxa uu hay'adaha dawladda ugu baaqay in 2 maalin gudahooda ay ku soo gudbiyaan saxiixyada shaqaale dhawaan loo tababaray ku shaqaynta nidaamka maaliyadda ee wasaaradda maaliyadda ay soo bandhigtay marka sidaas daraadeed waxa kale oo jirto 2015 in dhammaan hay'adaha dawladda aan la siin doonin wax qarashaad ah ama dalabaadka ay soo dalbadaan qarashaadkooda maadaama sidii hore qarashaadka loo bixin jiray ee ahayd macnaha from hand to hand in laga tagay laga gudbay la isticmaalo systemkan dhammaan hay'adaha dawladda waxaa laga doonayaa in ay soo gudbiyaan vendor listkooda ama ganacsiga hay'adaha ganacsiga ee wax kala dhaxeeya ee wax ka adeegtaan registrationkooda si loo ogaado license-ka hay'ad walba ganacsi ah ee ku shaqeyso ciddii soo dalbata qarashaad kuna soo dalba data vendors oo aan lahayn wax ganacsi ah ama wax shati ah in aan muxuu ahaa loo ogolaan doonin in qarash la siiyo mar labaad iyo mar saddexaad waan ku celinayaa waxaan hay'adihii dhammaan aan ku wargelinayaa in ay dhammaan soo gudbiyaan 2 maalmood gudahooda liiska vendorska Axmed Cali Kaaye SNTV magaalada Muqdisho.